tababar sare lagu qaadayo aqoonta shaqaalaha caafimaadka ee cisbitaalka guud ayaa maanta ka furmay hotel Sanaag ee magaalada Ceerigaabo. tababarkan ay fulinayso hay'adda Shifaad ee gacanta ku haysa maamulka cisbitaalka magaalada Ceerigaabo ayaa munaasabada furitaanka tababarkaasi waxa ka soo qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda duulista iyo hawada, gudoomiyaha gobolka Sanaag, maayirka degmada Ceerigaabo, mas'uuliyiinta hay'adda Shifaad iyo saraakiisha SDF. waxaana ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay madaxda hay'adda Shifaad Dr. Cadnaan iyo Muuse Xasan Yuusuf oo sharaxaad ka bixiyay hadafka iyo ujeedada tababarkan. annaga Shifaad ahaan annagu muhiimadeedu waxay ahayd cisbitaalku tayadiisa iyo waxqabadkiisa mar walba kor loo qaado. waxaanu maanta aynu inaguna soo aragnay ognahayna inuu halkii ugu wanaagsanaa marayo. waxaa jirtay qaybo badan oo aynu ka soo gudubnay oo imaka bilihii soo socday tababaro ay dhakhaatiirtan khubarada ah inoo jooga ay bixinayeen. waxaa kaloo ku xigta iyaduna oo barbar socota sida Cadnaan u sheegay nidaamkii iyo systemskii cisbitaalku ku shaqayn lahaa. marka annaga farxad weyn bay noo tahay warbixintayadan ama tababaradan maanta aanu idinku yeernayna qaybahaas un bay ka mid yihiin. furitaankan maanta waxaan iskugu imanay inaan furno tababaro in muddo la sugayay oo loogu talagalay in la siiyo shaqaalaha cududa shaqaalaha cisbitaalka Ceerigaabo. tababaradaas iskugu jira qaybta caafimaadka lagu tababarayo, qaar lagu tababarayo xisaabaadka oo cisbitaalka qaybtiisa maamulka oo la siinayo maamulka cisbitaalka. maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur, agaasimaha cisbitaalka Ceerigaabo Ismaaciil Salaamaan Bowkax iyo saraakiisha hay'adda SDF oo tababarkaas qabanaysay ayaa iyaguna dhankooda hadal ka soo jeediyay. anagu mar walba waxaanu bogaadinaynaa wixii wax nagu soo kordhinaya, wax yar ha noqdeen wax weyn ha noqdeen, waayo waxaanu ku naalaa meel fog, caasimadda ka fog, u baahan waxqabad. runtii cid allaale ciddii wax nagu soo kordhinaysa waxaan leenahay welcome, soo dhawow. iminkana ama tababarka ha noqoto ama waxyaalo cusub ay noo wadaan ha noqotee waxaanu leenahay ku soo dhawaada. tareerinka maanta bilaabmay ee daahfurkiisa aan bilownay insha Allah shaqaalihii ka faa'iideysan lahaa iyo aqoontii ka faa'iideysan lahayd waan haysanaa. shaqaale volunteers oo far badan baa cisbitaalka ka hawlgala oo ilaa gaaraya 100 gaaraya. waanu ku hawl jirnaa in aanu maxay ahayd toy aanu shaqaalaha wasaaradda caafimaadku ay meelayso la shaqaaleeyo ayaa iyaduna liiska ku jirta. qodobka kale ee aan halkan maanta ka sheegay isaguna farxadda inoo ah extension ayaa loo sameeyay oo waa la kordhiyay waqtigii mashruuca wuxuu ku ekaa bisha December inuu halkaas ku ekaado ku dhamaado, laakiin ilaa iyo 2018 ka bisha 9aad ayaa saddex mashruuc oo la kordhiyay oo aanu dalbanay oo dabadeetna dalabkii wasaaraddu ay dalbatayna laga aqbalo donorsku ay ka aqbaleen. kaasina waa bishaaro cusub. waxa gabagabadii munaasabada furitaanka tababarkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay iyo wasiiru dowlaha wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Axmed Cali Baynax oo shaqaalaha caafimaadka ku booriyay inay ka faa'iideystaan tababarkan. waxaan leeyahay shaqaale weynaha guud ahaanba dad fiican runtii idinka ka shaqaale ahaan waxa la idinka doonayaa fursadda dahabiyada ah inaad ka faa'iideysataan. cisbitaalku ka aqoon iyo shaqaalihiisu ka aqoon badan yihiin ayuu ka adeeg wanaagsan yahay. marka aad iyo aad baan idinku boorinayaa inaad dadaashaan wadaninimadiina iyo aqoontiina iyo xirfadaad halka ku barataanba aad la tagtaan cisbitaalkii. Jaabir Saciid Ali Jaabir Bulshaawi, Kalsan TV Ceerigaabo.